In ka badan 60 milyan oo askar ah ayaa waxa ay ka qayb qaadatay dagaalkii koowaad ee adduunka. 9 milyan oo ka mid ah tiradaasi oo u dhiganta boqolkiiba 14 askartii dagaalamaysay ayaa dhimatay, iyadoo taasi macnaheedu ay ahayd in celcelis ahaan maalinkii ay dhimanayeen 6,000 oo askari. ciidamadii xoogaga dhexe waxa ay gaarayeen 25 milyan, waxaana ka dhintay 3.5 milyan oo ayaga ka mid ahaa, halka Anti-Powers iyagana sidoo kaleete ay ku dabaabuleen furanta hore ee dagaalka ilaa 40 milyan oo ciidamo ah. laakiin waxaa dagaalkaasi looga dilay 5 milyan oo ka mid ahaa 40 milyan ee askarta ahaa ee halkaasi ay geeyeen. daawade, haddii aad ka hesho barnaamijyada taariikhaha ah, fadlan like saar. mahadsanid. dagaalkan waxa uu bilowday sanadii 1914 waxa uuna dhammaaday sanadii 1918 markii Versailles lagu saxiixday heshiiskii nabadgelyo ee amrayay dhammaan xoogagii ka qayb qaatay dagaalkaasi in hubka la dhigo lana heshiiyo. dagaalkaasi waxa uu dhex maray dowlado fara badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka oo sanadkii ugu dambeeyay ku soo biiray dagaalkaas, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, dowladii Cusmaaniyiinta, Ruushka iyo dowlado kale oo fara badan. balse dagaalkan waxaa lagu jebiyey oo laga adkaaday dowladii Jarmalka iyo tii Cusmaaniyiinta oo markii hore ahaa dowlado aad u quwad badan lagana cabsanayay. wuxuu ka bilowday dagaalkan magaalada Sarajevo ee caasimadda dalka Bosnia 28 Juun 1914, waxaana sababay wiil yar oo xagjir ahaa oo reer Serbiyaan ahaa markii uu toogtay dhaxal sugihii dalka Austria ee lagu magacaabi jiray Archduke Francis Ferdinand iyo xaaskiisa. balse khubarada ku xeelka dheer dagaalada caalamka waxa ay sheegeen in sababtu kaliya taasi aysan ahayn, ay jireen sababo kale oo aad uga sii weynaa, waxaana loo sababeeyaa sababta dhabta ah ee dagaalkaasi horisay 7 sababood ee soo socda. sababta koowaad waxa ay ahayd dagaalkii ka dhacay Yurub 70meeyadii qarnigii 18aad oo looga guuleystay dowladda Faransiiska. waxa ay dowladda Faransiiska mar walba qorsheynaysay oo muddo dheer ay ku taamaysay inay mar argudato ayadoo laga haystay dhul baaxad weyn, sidoo kalena ka baqaysay inuu mar labaad ku soo rogaal celiyo Jarmalka oo markii hore ka adkaaday iyada. sababta labaad waxa ay ku sheegaan taariikhyahanadu dowladaha waaweyn oo ku loolamayay dalal ay gumaystaan, iyadoo uu Jarmalku dareensanaa in laga sadbuursaday, taasi oo marnaba aanan u cuntamin, iyadoo dhaqaalaha Jarmalku uu sidoo kale u baahnaa dhul cusub oo uu kheyraadkiisa la soo baxo. iyadoo taasi ay jirta ayaa haddana Jarmalku waxa uu dareemayay in dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska ay isbeegsadeen oo ay ka sidbuursadeen. sababta saddexaad ayaa waxa ay ku sheegaan taariikhyahanadu khilaaf dhanka xuduudda badda ah oo ka dhaxeeyay dowlado dhowr ah. Ingiriiska ayaana xilligaasi awoodda ugu weyn ee dunida dhanka ciidamada badda ah haystay, iyadoo ciidamadiisa baddu ay joogeen dhammaan daafaha dunida oo intooda badan ay gumaysatay dowladda Ingiriiska. balse Jarmalka ayaa isna bilaabay in uu xoojiyo ciidamadiisa badda sanadu markay ahayd 1889. taasna waxa ay halis muuqata u noqotay dowladda Ingiriiska oo ka cabsanaysay in Jarmalku uu ku soo xoogaysto. durbaba dowladii Ingiriiska waxa ay bilowday in ay dhisto markabkii dagaalka ee abid ugu weynaa adduunyada oo la dhiso, kaasi oo la oran jiray Dreadnought, lana dhameeyay dhismihiisa sanadku markuu ahaa 1906, iyadoo loogu talagalay inuu ka qayb qaato wax walba oo dagaal ah oo lagala hor yimaado dowladda Ingiriiska. qodobka afaraad, taariikhyahanadu waxa ay ku sheegaan loolan dhanka xuduudaha ahaa oo u dhaxeeyay Ruushka, Jarmalka iyo Austria, waxayna Ruushka iyo Jarmalku isku haysteen sidii ay u kala qaybsan lahaayeen dhulka hadda loo yaqaan Poland, halka Austria iyo Jarmalka iyo Ruushkana ay isku haysteen gobolka lagu magacaabo Jalesia. qodobka shanaad ee dagaalka horiyay ayaa waxaa lagu sheegaa inuu ahaa loolan dhanka wadamada la isku yiraahdo Balkans, kuwaasi oo ka go'ay dowladii Cusmaaniyiinta oo sii tabaryareynaysay. sanadii 1908 ayay Austria waxa ay qabsatay wadanka hadda loo yaqaano Bosnia, iyadoo sidoo kalena wacad ku martay inay qabsanayso Serbia. qodobka lixaad ee taariikhyahanadu ay u sababeeyeen in dagaalkaasi uu sabab u ahaa ayaa waxa ay ahayd xulafaysi ballaaran oo ka bilowday caalamka. waxay u kala qaybsanaayeen Triple Alliance oo ay ka mid ahaayeen wadamada Jarmalka, Austria iyo Hungary, halka kooxda kalena ay ahayd Triple Entente, waxaana uu mideynayay magacaasi Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka. qodobka ugu dambeeya ee taariikhyahanadu ay u sababeeyeen in dagaalkaasi uu sababay ayaa waxa ay ahayd
wadamada xoogga badan ee caalamka oo samaysta ciidamo aad u awood badnaa, waxaana aad isu hubeeyey wadamada Ruushka iyo Jarmalka si ay u qabsadaan wadamada Balkaniska la isku yiraahdo. Haddaba maxaa keenay in dagaalka loogu yeero dagaalkii koowaad ee dunida? Dagaalkan oo dhacay intii u dhaxaysay 28 Juun 1914 ilaa 11 November 1918 ayaa waxa uu kasbaday in loogu yeero magac caalami ah, ayada oo uu dagaalka socday 51 bilood oo aan kala joogsi lahayn. Celcelis ahaan, sida taariikhyahanadu ay sheegaan, waxaa ka qayb qaatay 28 dowladood, 14 ka mid ah ay ahaayeen dhinacyada xulafada. Sidoo kaleete, taariikhyahanadu waxa ay sheegaan 93% dadka dunida ku nool ayaa si toos ah ama si aanan toos ahaynba ugu qayb qaatay dagaalkaasi. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay 3 qaaradood oo kala ah Yurub, Afrika iyo Aasiya, oo ah qaaradaha ugu dadka badan caalamka. Dhanka Yurub haddaynu ku bilaabano, dagaalka waxa uu ka dhacay Balkaniska, Talyaaniga iyo Daanta Galbeed, iyo sidoo kaleete bariga qaaradda Yurub, halka Aasiya uu ka dhacay wadamada Falastiin, Ciraaq iyo dhulka loo yaqaano Qowqaas, halka Afrikana uu ka dhacay galbeedka Afrika. Sidoo kaleete dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay Pacifica, ayadoo uu ka dhacay jasiiradaha uu gumaysan jiray Jarmalka. waxa ayna ahayd dagaalkii ugu horreeyay caalamka ee la iska weeraro cirka, dhulka iyo badda. waxaa la isu adeegsaday hubkii ugu casrisanaa ee waqtigaasi joogay. waxaa kaleeto oo la isu adeegsaday, sida ay taariikhyahanadu sheegaan, gaas sumaysan. sidoo kaleeto cududa dagaalkan ayaa waxaa ka mid ahayd dhufaysyo qarsoon iyo telegaraafka oo qayb ka qaatay isgaarsiinta ciidamada ku kala sugnaa meelo kala duwan oo caalamka ah. kooxda la isugu yeeri jiray alliances ama xulafada ayaa waxay ciidamadooda dhammaayeen 42,188,000 oo askari oo isugu jiray Carab, Afrikaan iyo reer Yurub. waxa ayna ahaayeen celcelis ahaan marka la isku daro dhammaan wadarta guud ee dadkii ka qayb qaatay dagaalkaasi 65% xulafada, halka kooxda kaleete ee la yiraahdo mixwarka ay ahaayeen 2,850,000 oo u dhiganta 35% wadarta guud ee dadkii ka qayb qaatay dagaalkaasi. marka la isku dardaro wadarta ciidamada ka qayb qaatay dhammaan dagaalkaasi ayaa waxa ay taariikhyahanadu ku sheegaan 65,038,000 oo askari oo laga kala keenay qaaradaha Afrika, Yurub iyo sidoo kaleete Aasiya. waxaa khasaaraha dhanka allianceska ama xulafada lagu qiyaasaa in uu gaarayay 22,104,000, halka ciidamada mixwaankana la sheegay inay ku nafwaayeen 15,404,000. dhanka kale, dhaqaalaha waxaa ku baxay $10 milyan saacad walba. lacagaha tooska ah iyo agabka dagaalka waxaa ku baxay sidoo kaleete $186 bilyan Mareykanka ahaa. intaasi waxaa sii dheeraa in qoysas fara badan oo caalamka ku noolaa qaraabadoodii iyo tolkoodii ay waayeen, ayadoo caruur fara badan ay ku waayeen dagaalkaasi aabbayaashood. sidoo kale dagaalka ayaa waxa uu sababay in dhammaan caalamka oo dhan uu wada heegan galo, ayadoo dhaqaalihii iyo wax soo saarkiiba ay hoos u dhaceen. ugu dambayn, dadaalo fara badan oo la sameeyey ayaa dagaalkii waxaa la soo gabagabeeyey 1918 waxaana lagu soo gabagabeeyey magaalada la yiraahdo Versailles, ayadoo la kala saxiixday heshiis nabadgelyo oo dhigayay dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay dagaalkaasi ayna mar dambe dagaal fool ka fool ah isla gelin, ayadoo laga adkaaday dowladihii Jarmalka iyo Cusmaaniyiinta, laguna amray dhammaan dhulalkii ay haysteen inay ka baxaan haddii kaleeta dagaal cusub uu bilaaban karo. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii maanta ee aynu uga hadlaynay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sidoo kaleete wiilkii bilaabay dagaalkaasi.